waayo wax dambi ah ama arrin lagu eedeeyahay in xiriir leeyahay al-shabaab ay ku cadaan waayeen haddaba Saleebaan oo hadda ku sugan magaalada Burco oo saldhigiisu ahaa ayaan waraysi kooban la yeelan oo ka weydiinay arrimihii sidii loo qabtay waxyaalo la weydiiyay iyo sidii hadda loo sii daayay ugu horeyna Saleebaan bal waxa nagu warantaa qabashadaadii waadowgeed howlgal balaaran ayaa lagu filiyay 2 cisho ayuu socday diyaarada ayaa yimi iminkana waa lagu soo daayay maxaa lagu soo daayay sideenta sida sheegtay waxba lagu yahay ayaa lagu sii daayay xabsiga intii aan ku sugnaana muddo badan ayaa weydiinay waxaan u xidhnaa aan ku lahaa balbeenaha ahaatay waxaan dalkayga iyo dadkayga ka galabsaday ii sheega waxbaanu baalaynaa noo sabartaasi hayeen sabray 2 bilood wax la markii hayeena alaabtaadii soo qaadin baa lagu yiri oo in free waa tahay iska soco waxa la sheegay hawgahan uu qabtay inay ka qayb qaadanayeen oo ciidamada amniga Soomaaliland weheliyeen saraakiil Ingiriis ah oo sirdoonada kamid ah arinta maxaa ka jira indhaha qasaad cid ma aragtay oo hadii jaarka iyo dadkii la wareysay way sheegayaan dukaanka ugu xigay dawladda oo ay noo dhaxayso ninkaan markii aan soo baxay waa la hadlay jaar kale waa wareystay afarta koonada ragad cadaway ku sugnaaday operation ka qayb qaateen aniga lafteeda isla markiiba indhaha iga xireen laakiin markay dhulka jiifiyeen indhaha iga xireen rag af Ingiriisi ku hadlayay waan maqlayay oo jajabnayna af Ingiriisidii reer London ahayd British accent ku hadlayay caadi waan maqlayay Saleebaan intii aad xineen ma jirtaa wax jirdila oo lagu sameeyay ama la garaacisa wax garaacisa ama jirdila oo lagu sameeyay ma jirto joojoontii hore markii gaariga la gelinayay iyo qoriyar iyo dabada iyo laakiin markii hargeysa la geeyay waxa laali wax dhiba oo nadan karo jirdila lagu sameeyay ma jirto waxaan ugu maqaalaa in markii la qabtay isla haweenkii laga qaaday candhuuf DNA oo lagu baaray arrintaas ma jirtaa arintaas way jirtaa oo muddo fara badan ayaa indhahan ka xidhnay oo garanay meesha la geeyay meel la geeyay meel lagu tiiriyay DNA la candhuuf laga qaaday farahana laga qaaday isla markaaba anigu ku raacday horta ma aan arkin laakiin waxaan dareemay in arrinkan arrin Soomaaliland uu ka weyn yahay maadaama wada candhuuf wax laga qaaday hala waana laga qaaday candhuuf iyo faraba Saleebaan hawlgal badan ayaa qabashada lagu filiyay magaalada oo dhan argagax baa la geliyay 2 cisho ayuu soconayay maxaad u malaynaysaa in lagu qabtay oo aad dareenkaaga markaad ugu noqotay aad u malaysay in lagu qabtay tarantii muddadii aan xidhnaa oo 2 bilood ku dhawaad ahayd in badan ayay su'aashaas maskaxdayda soo gashay oo ruufogay in war sugan wali ma hayo laakiin arrinkani inuu yahay nooc min in dadkii diinta laga eriyo oo cidii deegan la baxdaba ama khamiis xelataba in ay yihiin dad dambiiliyaal oo wax qarxinaya ama wax sameynaya dadkii mujtamaciin fikrad saas la siiyo ayuu aniga ilati oo dad fikrad gaar ah wata ay ka dambeeyaan waayo anigu waan soo iyaguna waayeen ana waxba sameynin marka in dadkii diinta la nacbaysi ayuu aniga ilati dad fikrad saas wadatay ka dambayso Saleebaan waxa la sheegay oo markaad ku soo baxday wax dambe lagu waayay wixii lagu eedeeyay wixii la qabtay aan xog ka jirin ma jirtaa hadii arintaas waad bari ka noqotay wax magdhow ah oo lagu siiyay maadaama in dambiila noqon weyday oo lagu yiri magdhow waa lagu siiyay xukuumadda kugu daaqday maadaama karaamadaada iyo sharaftaada meel laga dhacay runtii sidaa sheegtay karaamadii iyo sharaftii waliba siyahantii aabahayba meel baa laga dhacay oo dib website waxa jira in anigu aan shalay toona akhriyay dibta lagu noqday taariikhda la xidhay waxyaabo badan oo aflagaada ah aniga iyo aabahay iyo shirkadda aan u shaqeeyaba gaarsiiyay dadkaan aan waxaan ku oran lahaa chance ka faa'iideysan in Ilaahay ka baqaan apology ay bixiyaan oo waxyaabihii qofka horta dambiile maaha ilaa inta maxkamad la geeyo dambi lagu oogo leemana dacwada maxkamadda leema geyn baaris baa lagu waday dadkii markaa waxa qoray way is ogyihiin magaciisa meeshan kama sheegayo in apology siiyaan aabahay iyo aniga iyo shirkadda iyo dadkii dambiga ka galeenba hadii aan soo noqdo su'aashaadii dawladdu wax magdhabo ay siisay ma jirto saan hore kugu sheegayna aniga ayaa gurigeyga ka haya Saleebaan waxa kale ugu maqaalaa 2 nin asxaab oo kale ayaa kula socday waa reer Soomaaliland ahayn ragaas waxay rag la daba socday oo raadkooda lagu joogay nimankan gaalada iyo ciidamada amniga daba socdeen arrintaas ma jirtaa arrintaa in kayso wada maasanta laakiin waxba kuma jiraan hadii ka jiraan anna halkan maanta iyaguna lama sii daayeen sidaa sheegtay maalintii soo baxay BBC ka dhageysanayay anigana la sii daayay iyagana la sii daayay hadii wax dambi ama dabagalay ku jiraana lama sii daayeen aniguna sidaan hore kugu sheegay dhinaca Ingiriiska 10 sano iyo saayid baan joogay waxa nasiib darraa anigu 10 sano iyo saayid Ingiriiska joogay oo wali fadligayeen gurigii hooyo islaam ahaa markii aan imi inay gaalada intii Soomaali soo ka haysato gurigeygii iyo mujtamaca aan la joogay argagixisada habeenkii ay sameysay ku sameeyso hadii dadka weydiisid Saleebaan argagixis waxa magaalada martida waa may kooranayaan sidii loo xiray iyo qaabkii loo xiray laakiin argagixisa ma aha dad weydiisina haabay kugu jawaabayaan
سلمان adiga laftaadu markii lagu xidhay warar dambe oo soo baxayay warbaahintu la sheegtay ayaa waxay sheegayaan Salmaan wuxuu ahaa nin reer London muddo badan deganaa dambiye ayuu ka soo galay nimankan guriisku daba socdeen Yaman buu tagay raad bay hayeen oo si nin la daba socdo kala dabna sidaas ayaa Salmaan loo qabtay lagu xidhay la yiri taas ma jirtaa tar wax ka jira ma ay jiraan kiiso waayo sidaan ku sheegay 10 sano iyo saayid ayaan Ingiriiska joogay hadii ay doonayaan madayay ay xaafadaha iyo guryahan ku nool madayay dhistay oo dad ay qaban lahayn waxay u siiyeen ilaa intaan imanayo burco oo waliba 3 sano ay ka soo wareegaan ay xiraan waa mid xitaalmo yaraanu misaysa ka dhaadhac wax dambiye xagga ka galayna ma jira hadii aan ka galayna xagaas lagu qaban lahayn inta taasna waxa ku jira Salmaan waxa jirta waa lagu soo daayay waxba lagu waayay soo deyntaadana ma mid maxkamad xukuntay oo si rasmi ah lagu sii daayay mise waa mid aadam ku soo baxday oo saacadii lagu baahdo lagu yeeri karo taasi waa su'aal fiican mid damina ku soo baxayna ma jirto tamin hadii aan ku baxayna dee hore oo galaan lahaayeen waa mid maxkamadda iyo qolooyinka sirdoonka iyo ilaa madaxweynaha ka soo go'day oo markii dibaaris fara badan ay sameeyeen wax dambiye ugu waayeen ay sii daayeen wax laani wax condition ay u xireen ma jirto ama safrin ama waxba condition ay u xireen ma jirto inay xorriyadda buuxda qaado waxay ku weynay Salmaan ragiyaad saaxiibka haydan ee lagu la qabtay ee la yiri waxay ka yimaadeen London ama Soomaaliland si ay sheegayaan iyaga ma la sii daayay oo xorriyadoodii ma loo soo celiyay sidaadii haata lagu sii daayay runtii in badan isma arkaynin markii aan xabsiga ku jiro way ma kala yaayeen laakiin maalinta soo baxay BBC-da kulli sida loo dhageystay aniga iyo nimankii la xidhnaaba waa la sii daayay oo dambiga lagu waayay ayay sheegaysaa marka iyaguna waa la sii daayay nimanka saaxiibka ayaan ku yimid muddo kula joogo burco iyagu maxay u socdeen maalin ku socdeen ma hawlo kala socdeen ila waxyaalo shaqiga dhigay lagu xidhay ayaa arrinta soo ka ahayd sax su'aal fiican weeye nimanku aniga inay soconin labada inaan kamida inay walaaliyeen Hargeysa degan bay ku socdeen inankaas ay igu yiri safar dheer bay ka baadeenaha kula joogan aniga ka soo kaxaynaya xaaskiisa isagu u dhufay ayaa ugu dhacday marka wuxuu jimcaha ku saxdaan jimcaha dadka daba ka soo doonaya aniga sidii sugayna watan maqaadirta lacag ay igu baadeen marka aniga inuu socon aniga inuu shuqul lahayn marka Hargeysa joogay socdeen Salmaan markii lagu xidhay xabsiga wuxuu ahaa ka Hargeysa oo burco laga qaaday imika wala soo daayay ma jirta rag sidaado kale loo qabtay oo wali ku xidhan xabsiga oo iyaguna aan dambi lahayn ee la iska hayo mise waxa meel cusub oo idinka la idin geeyay wallahi taasi waa su'aal fiican in abaaraha iyo dhibaatooyinka maanta Soomaaliya haystaana waa dambiye iyo dunuub aanu jamiic ahaan la galay dad baa xabsiga ku jira imika 6 sano 4 sano 2 sano aan wali la xukumin oo la hayo maxkamadna aan la geyn sharcigu ma wuxuu qorayaa qofka waliba falalka loo qabto in 9 cisho la hayn karo 9 cisho oo dhaafto 6 sano iyo 4 sano la hayaa imika qolkan aan ku jiro qolka kale horan ku jiro 20 cisho aan ku jiray nin waana baa ku xidhnaa wuxuu ilaahay ka qaaday oo argixisay loo soo xidhay askartii iyo taliyayaasha markay yaabeen qoladii CID ku qayliyeen ayaa markii dambe la sii daayay qolku iga xigay nin baa ku xidhnaa Maxamed la yiraahdo imika aan ka yeelay wali ku xidhan oo maalin ay yeereen oo si mistake ahaan loo kaxeeyay qoladii CID markaa keen maqlay waa yaabeen bilahay oo wali miyaan ku haynaa wali ma xirantay waa min yaab qof inta xorriyadiisa la qaatay bilo sayl lahayo aan laga warhayn cidii keetina ilaa weynba marka dad way jiraan xabsiga ku jira dulmi waa hayo oo xabsiga ku sugan oo meel aan la geyn oo jiraan ha Salmaan inta xabsiga ku jirtay xabsiga lagu geeyay markii xabsiga dhexe jeelka aabuha mise wali lagu kala dadka laga shakisan yahay oo u gaara isla markaana ma qof baa wuxuu mise wadar oo wasaarkiisa dadka meesha xidhan xabsigan weyn ee cusub jeelkan cusub Hargeysa ayaa la geeyay meel kale lama geynin markii 20 cisho kali baan ahayn oo qalbaan ku xidhnay ismanaan aan arkaynin adcada iyo noo soo saar jiray 10 minute 15 minute baad 20 cisho qolooyin baa mandheere iyo xabsiyadii kale la keenay aniga markaas 9 nin oo burcadbeed loo haysto ayaa qolka loo soo galiyay oo intii ka dambeysay aan ku jiray ilaa siideynteedii laakiin aad u ilaalinayeen inaan sarag waliba qolooyinkiina la soo xidhay ismanaan arki jirnay diin ragga asxaabta ee qabtay yaa sirtay nasiidaay xiriir dambe ma yeelateen oo dib ma u xiriirteen wax wada hadala ma kula soo hadleen ma wax wada hadala ama xiriir dambe aan yeelnay ma jirto alaan meel laaliin meel ku sugan ma aan garanayo ay jirto Soomaaliya ilaahay geeyeen ilaa soo hadal anna meel aan kala hadlamahay wax xiriir naga dhacay intii la siiday ma jirto laakiin waxaan kala oran lahaa aan ku dari lahaa dad badan oo la siidayo sida aniga la xiriir la siiday marka arrinkan burco uu ku socda
wadaadadii inta la iska qabqabto la sii deynaya haddana inta waxba lagu waayo magacoodii inta dee la dilo anigu dadkii waxaan ka dambeeyey ilaahay ka baqdaan nolola ilaahayna u laabta oo dhibaatadana dadka iyo diinta ku haysaan ka joogsada maalin maanta ka ahayn baa ilaahay subxaanahu wa ta'aala hortaagi doontaane kale aan ku dari lahaa in caalamka waa aragteen telefishinada waa daawateen dadka dee CID ama CIA ha noqotay dadka intay baaraan oo muddo badan inta ay baaraan ay dambigii markay ku ogaadaan ayaa qofkii la soo qabtaa laakiin qofkii waanu iska qabanaynaa magaciisii iyo mujtamaciisii iyo shaqadiisii iyo noloshiisa dhan waanu ku ciyaaraynaa markaanu intaa ku ciyaarnayso dambi lagu oogin waa mid laga subxaanaysta weeye marka horta bal wax xubsada oo wax baara dadkiina wax baarayo intaydan dadka iska xilxilin baa inta waxa la sheegayaa markii lagu qabanayo hawlgalka socday adiga labada saaxiibada guriga ku sugnaa gurigaaga hawlgal badan ayaa lagu fuliyay xaafadaha eeriyada waa la xidhay waa la baaray waxa la sheegay alaabooyin badan gurigaaga laga qaaday sida kombiyuutar laabtoob wax la wixii laga shaqeeyay alaabadii iyo agabkii gurigaaga laga qaaday waxa ka mid ah mise lagu soo celiyay wixii gurigaaga laga qaatay horta runtii sidaa sheegtay waxyaabo badan way ka qaadeen guriga waxyaabo la yaab leh oo ay daqiiqo ka mid tahay waraaqo yar oo meel iska yaalay laptop iyo telefonkeygii kii xaaska laptopkeygii runtii badan wax badan waa loo soo celiyay laakiin still waxyaabo badan ayaa ku maqan telefonkeygii kii xaaska lacag guriga laga qaaday wixii oo dhan alaan ma hayo qaybo kamid laakiin laptopkeygii oo kale waan hayaa laakiin waxyaabo badan baa weli maqan way Salman aad ayuu mahadsantahay kaas wuxuu Salman Maxamed Xuseen Naalay oo loo yaqaan Salman Good oo kamid ah dhalinyarada laga qabtay magaalada Burco ee dhawaan siiday kadib markii waxba lagu waayay waana waraysi maanta kula yeerin magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer Kays Axmed Digaale Home Cable TV Burco